heer shabeelle maamulka heer shabeelle halkan waxaan uga dirayaa baaq madaxweynaha iyo guddoomiyaha anigu guddoomiyahaas waabu dalla'ayaa baan islaa madaxweynuhu noqonaya dalka isagaa qabsanaya waayo madaxweyne wuxuu ahaa guddoomiye daacada guddoomiye la dagaalama cid allaale ciddii nabadgelyo darro wadda guddoomiye aad iyo aad dalkiisa iyo dadkiisa daacad uga ah miidiyaan kula socday cali jaaje cismaan waxaan leeyahay xilkaa laga qaaday waa lagu degdegey xilku qaadisna maanta looma jeedo waxaa loo jeedaa sidii qarankan loo badbaadin lahaa cid allaale ciddii ku soo duusha loola dagaalami lahaa qarannimada iyo midnimada iyo soomaalinimada iyo nabadgelyada laysu garab taagi lahaa waxaan leeyahay cashuurtaa laysku qabsaday waa xaqdarra baan leeyahay cashuurta dalkaa wax loogu qabanayaa dadkaa wax loogu qabanayaa labadooda kii khaldan sharci iyo dastuur baa jira dowladdu leedahay dastuurka iyo dalka sharcigiisa loo hoggaansamo waxaana leeyahay madaxweynaha iyo guddoomiyahaba guddoomiyuhu aad buu u shaqaynaya madaxweyne ka noqon ku leeyahay ka noqo waxa weeye casilaadda aad guddoomiyaha casishay guddoomiyuhu in weliba baal dahaba la siiyo bilad la siiyaabuu istaahilaa guddoomiyahana waxaan leeyahay madaxweynaha gala shaqee khilaafaadka dhaaf nabadgelyo iyo wada jir iyo dagaal baa ku jirteen dagaalka sii wada nabadgelyada sii wada gacmaha isqabsada cid kastoo nabadgelyada ka soo horjeedana dagaal la gala baan leeyahay baraawe dhibaatada ka socota ee ay isku haystaan reerka degaanka ee hawiye iyo raxaweyn waxaan leeyahay dee waxaa u degaana sagaalka ilmo samaalaha baraawe u degaana sagaalka ilmo samaale ayaa u degaana waxaan leeyahay ilmo samaale meelay joogaanba gacmaha ha la isqabsado raxaweyn dee anigu markaan somalilan joogay maan aqoonina halkan baan ku barta waxaan leeyahay raxaweyn hadday xaq leedahayna dee xaqeeda yaan la duudsiyin laakiin anigu waxaan u aqaanay meeshaa sagaalka ilmo samaale inay wada degaan ee wada leeyihiin weliba dir iyo hawiye inay leeyihiin ayaan anigu u aqaanay waxaan leeyahay gacmaha ha la isqabsado nabadgelyaha ha lagu xalliyo wada jir ha lagu xalliyo nabadgelyaha haddii la waayana madaxweynaha soomaaliya guddi dhexdhexaadina ha u dira baan leeyahay waxaan leeyahay dalka inta ololaysa ha la baktiyo wada jirka iyo midnimada iyo horumarka soomaaliya ha laga qayb qaato jubbaland oo ay isku haystaan mareexaan iyo ogaadeen garbahaare waxaan leeyahay mareexaan iyo ogaadeen waa walaalo waa daarood waa harti waxaan leeyahay walaalaad tihiin kursiga laba walaalaa baa kursiga isku qabsada ha isku aakhiro sheegina dadkiina shacabka ee nabadgelyada ku jirana ha isku dirina kursi siyaasadaysan nabadgelyada a haysataan iyo wadajirka iyo midnimadaasi siyaasadayaanay dab inagu shidin waxaan leeyahay nabadgelyada qaata wadajirka qaata horumarka qaata walaalaad tihiin maanta laydiin kala faalin maayo labadii laysugu faalin jiray baa tihiin waxaan leeyahay war nabadgelyada ka wada shaqeeya mareexaan iyo ogaadeen labada reer ba anigu waan garanayaadoo labada reerba oo laba reeroo goba waa laba reeroo wanaagsan waxaan leeyahay nabadgelyada iyo wadajirka ciddii khaldanina waxaan leeyahay khaladka ha iska dayso oo ha u hoggaansato sharciga iyo dalka shuruucda dalka u yaalla gedana ha lagu wada noolaado nabad gedo ha lagu wada noolaado nabad soomaali weyn waxaan leeyahay nabad ku wada noolaada gedana waxaan leeyahay nabadgelyaha lagu wada noolaado muqdisho waxaan leeyahay nabadgelyaha lagu wada noolaado laascaanood waxaan leeyahay nabadgelyaha laguna wada noolaado waxaan leeyahay garowe nabadgelyaha lagu wada noolaado inta dhimatay allaha u naxariista inta noolla caafimaad allaha siiyo inta dhaawacantana allaha u boogaydhayo anigoo oday soomaaliyeeda oday soomaaliyeed afkiisii ku hadlaaya dhammaan waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel kastoo dab ka baxayo dabka ha la baktiiyo meel kastoo dab ka baxayo baaq baan u soo dirayaa waxaan leeyahay waar ilaahayaa laga yaabo nebigana lagu salliya calayhi salaatu wasalaam oo waa la dhimanayaa qabri iyo qiyaama inaga dambeeya siyaasad baa la dalkeennii waashay reer hebel iyo reer hebel baa dalkeennii waxa weeye waashay gacmaha ha la isqabsado wada jirka iyo midnimada iyo horumarka soomaaliya ha laga wada shaqeeyo waxaan leeyahay salaadiinta iyo nin garbeedka iyo cuqaasha iyo ganacsatada iyo haweenka iyo dhallinyarada war nabadgelyada ha laga wada shaqeeyo qaranka soomaaliya siduu mar labaad cagihiisa isugu taagi lahaa
oo u socon lahaa ha laga wada shaqeeyo qolada odayaasha ah ee laascaanoodna waxaan leeyahay soomaaliya weli kama goyn somalilan oo ictiraaf may siinin ictiraafkuna wuxuu kaga xidhan yahay soomaaliya waxaan leeyahay ceelka shidaalka ahee ku dagaalamaysaan leeyahay holholbaa ceel shidaali ku jira madaxweynaha soomaaliya saxeexa mooyaane cidima qodi karto waxaan leeyahay dagaalkaa ha la joojo dagaalkaa laleeyahay macdan baa la doonayaa somalilan inay gurato ceel bay doonaysaa inay qodato dagaalkaa siyaasadaysan ee dalkii nabadgelyada iyo wadajirka iyo midnimada ku wada jiray dagaalka lala galay ee maanta meedka badan iyo dhaawaca badan yaalaan dagaalka nabadgelyaha lagu soo xalliyo muuse biixina waxaan leeyahay dhulbahante camuudda isagaa leh waxaad shalay siyaad barre ka diidday aad tidhi isaaq baan oo xukumi meeshid maantana waxay ku leeyihiin isaaq maantana waxaad leedahay waxaad tihi isaaq baad too xukumi meeshid maantana waxay ku leeyihin adiguna isaaq baad toona xukumi meeshid adiguna waxaad tihi daarood baad toona xukumi meeshid maantana waxaad samaysaa cabdilaahi yuusuf sidaad ugu soo hubaysay puntland waxa weeye maxamuud saleemaan ugu soo hubee warkaaga waa la hayaa qaramada midoobey midowda yurub jaamacadda carabta cidday quseysoo dhan waxaan leeyahay muuse biixi auuda waxaan leeyahay yo cidday qusaysaba muuse biixi yo cid allaale ciddii nabadgelyo darro wadda dalka ha laga qabto dalkan ciddii nabadgelyo darro wadda ha laga soo hor jeesto midnimada iyo wadajirka iyo qarannimada soomaaliyeed ha la dhiiriyo halkan aanu joognaa waa beertii nabadda waa nabadgelyo waa barwaaqo ha la soo camiro ha lagu leydhsado waxa weeye qof walooba jacaylkaaga keen islaantaada keen saaxiibkaa keen waa meel nabadgelyaa waa meel horumar leh waa meel barwaaqa waa meel nabadgelyadeedu aad iyo aad u fiican tahay waxaan leeyahay haddii soomaaliya beerta nabadoo kaloo ay wada haysato barwaaqo iyo bashash iyo nabadgelya ayay gaadhi lahayn qurba joogta soomaaliyeedna waxaan leeyahay muqdisho waa nabadgelyo muqdisho waa nabadgelyo muqdisho waa nabadgelyo ha soo noqdeenoo dalkooda iyo camuuddooda ha ku soo noqdeenoo ha maalgashadeen baan leeyahay qurba joogta soomaaliyeed meelay joogtaba baaq baan u dirayaa war dalkiinna ku soo noqdoo maalgashada waa nabadgelyo waa horumar waa barwaaqo cidda nabadgelyo darro waddana ha lala dagaalamo meela looga soo wada jeesto qarannimada iyo wadajirka iyo soomaalinimada ha la xoojiyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ha la isbarbar taago isaga iyo ra-iisul wasaare xamse soomaaliyeed ha israaceen gacmaha ha isqabsadeen nabadgelyada ha ka wada shaqeeyeen ganacsatada iyo dhallinyarada iyo haweenka iyo salaadiinta iyo cuqaasha iyo waxgaradka war nabadgelyada ha laga wada shaqeeyo si aanu horumar gaadhno barwaaqo u gaadhno sida maraykanka iyo ingiriiska iyo jarmalka iyo adduun weynaha siduu horumarka u gaadhay nabadgelyuu ku gaadhee nabadgelyo aynu dalkeenna ka shaqayno ninkii wax kala hadhow dalkaaga qoodhaa iyo xeradaaba jacad ninkii dalkaaga wax kala hadhow qoodhaa iyo xeradaaba jabtay ilaahayna wuxuu kaala xisaabtamayaa mas-uuliyadda uu ku saaray ilaahayna ha ilaawin dalkaad u dhaaratayna ha ilaawin midnimada iyo wadajirka iyo soomaalinimadana ha ilaawin waxaan ku soo gebagabeynayaa nabadgelyada ha la ilaaliyo wadajirka ha la ilaaliyo soomaaliyey tooso assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaati soomaaliyey tooso isku tiirsaday hadba kiina tamar daraney taageera weligiiney waxaan leeyahay soomaaliya guul soomaali weyn guul midnimo wadajir iyo nabadgelyo ayaan ku baaqayaa baaq nabadgelyo